assalaamu calaykum soo dhowaada asxaabay waxaan duu bilownay shaqadii kanaalkeenna iftiinka xogaha waxaan ku soo gudbin jirnay muuqaalihii barnaamijyo xiise leh oo ay ka mid yihiin taariikho dhacdooyin qisooyin iyo warbixino xiise leh ku soo dhowaada mar labaad haddii aad ku cusub tahay kanaalka sabskaraib noo saar waxay noo tahay dhiirigelin inaan sii wadno barnaamijyada iyo qisooyinka xiisaha leh mahadsanidin sheeko dhacdaa runtii aadna cajiiba waa qiso diini ah iguna yaabka badnayd intaan qisooyinka akhrinayay wakhtigii taabiciyiinta magaalada u weyn ee muslimiintu wax ka bartaan waxay ahayd magaalada baqdaad ee haatan caasimadda u ah ciraaq sidoo kale waxay ahayd magaalada laga maamulo dowladda islaamka maalin maalmaha ka mid a ayaa waxa magaalada yimid nin ka socda boqortooyadii ruumka the roman empire kaasi oo u sheegay khilaafkii muslimiinta inuu hayo 3 su'aalood oo hadday muslimiintu ka jawaabaan uu siin doono maal badan oo uu ka keenay boqorka ruumka khilaafkii ayaa isugu yeedhay dhammaan culimmadii muslimiinta iyo dhammaan wixii aqoon-yahan ahaa kadib ayuu amray ninkii ruumaaniga ahaa inuu su'aalihiisa soo daayo ruumaanigii ayaa weydiiyey muslimiintii halkaas isugu timi 3 su'aalood oo uu hayey waxa uunu ku bilaabay ilaahay horraantiis maxaa jiray ilaahay dhankee ayuu u jihaystaa ilaahay muxuu hayaa hadda iminka waa 3 su'aalood oo uu qabay ninkaasi ruux hadla ayaa la waayey shib iyo shib ayaa ka dhacday xoogaa kadib ayaa wiil yar oo la fadhiyey aabbihii istaagay oo yidhi aabbe anaa ka jawaabaya su'aalahaas anigaana idinka aamusiin doonaa kadib ayuu wiilkii yaraa fasax ka qaatay khaliifkii markaasuu ku yidhi ruumaanigii ma taqaannaa sida wax loo tiriyo haa ayuu ku jawaabay ruumaanigii ayaa markaas ayuu wiilkii yaraa yidhi waxaan kaa rabaa inaad tiriso tiro ilaa iyo 10 ah waana inaad ka bilowdaa kor adigoo hoos u tirinaya ruumaanigii ayaa bilaabay 9 8 7 ilaa uu ka gaadhay 1 markii uu ka gaadhay 1 ayuu aamusay wiilkii yaraa ayaana yidhi maxaa ka dambeeyey 1 markaas ayuu ruumaanigii ku jawaabay waxba 1 ayaa ugu dambeeya wiilkii yaraa ayaa yidhi haddii ay tiro 1 ugu dambayso oo aad dhaafin weysay sideed markaa ku weydiisay wax jira ka gadaal midka keli ah midka 1 ah midka axadka ah midka joogidda abidka ah midka ugu horreeya midka ugu dambeeya midka daa'imka ah waana allah ruumaanigii ayaa la dhacay jawaabta cunuga yar cunugii yaraa ayaana bilaabay ka jawaabista su'aashii labaad taasi oo ahayd sheeg ilaahay dhankee ayuu u jihaystaa wiilkii yaraa ayaa yidhi shumca ha la keeno kadib ha la daaro markii la daaray ayuu wiilkii weyddiiyey ii sheeg halka uu holocu aadayo ama u jihaysanayo ruumaanigii ayaa ku jawaabay holaca waa iftiin aanan u jihaysanayn dhanna waqooyi koonfur bari iyo galbeedka wuu ifinayaa wiilkii ayaa ku jawaabay haddii iftiinka yar uu iftiiminayo dhammaan 4 jiho uusanna ku ekayn dhanna maxaad u malayn iftiinka nuuru samaawaat wal ard ilaahay dhan walba ayuu eegayaa waana iftiinka dhammaan dhulka iyo samaawaadka ninkii ayaa haddana la dhacay jawaabta wiilka yar cunugii yaraa ee xikmadda ilaahay ku mannaystay intuusan weyddiin su'aashii 3aad ayaa wiilkii yaraa ku yidhi ruumaanigii adigu mimbar ayaad fuushaa aniguna dhulka ayaan taaganahay ase yeeshee anaa layga rabaa jawaab celin markaa miyaysan fiicnayn inaad soo degto si aan anigu mimbarka u fuulo si dadka dhammaantood ay u maqlaan jawaab celintayda ruumaanigii ayaa arrinkaas aqbalay oo ka soo degay mimbarkii wiilkii yaraa ayaana ku fadhiistay mimbarkii uu ka soo degay ruumaanigu kadib ayuu weyddiiyey su'aashii 3aad oo ahayd ilaahay muxuu hayaa iminka wiilkii yaraa ayaana ku jawaabay hadda ilaahay wuxuu sababay inuu beenaale ka soo dejiyo mimbar sare kuna beddelo kii isaga aaminsanaa iminkana ilaahayga aad weyddiinayso waxa uu hayo wuxuu sababay inuu beenaale diintiisa ku jeesjeesayo uu dhulka dhigo korna u qaado kii aaminsanaa ilaahayna maalin walba xaalkiisa waa sidii uu isagu doono markaas ayuu wiilkii yaraa akhriyey aayadda 29aad ee suuratu arraxmaan ninkii ruumaaniga ahaa ayaana isaga oo qalbi jab ku dhacay ku noqday dalkiisii wiilkii yaraa
ayaana ilaahay sababay inuu noqdo imaam aad loo xurmeeyo lagana qaato diinta islaamka. wiilkii yaraa ee xikmadda badnaa ayaana noqday imaamkii weynaa ee islaamka ee loo yaqaano alimaamu abu xaniifa. halkaas ayay qisadeennan cajiibka ee dareentaabadka ay ku soo gabagaboomaysaa. ilaahay ayaa xumaan oo dhan ka nasahan subxaan allah. haddii aad halkan muuqaalka soo gaadhay fadlan la sii wadaag saaxiibbada oo sheergaree fiidowgana like saar si aan u soo wadno qisooyinka iyo barnaamijyada xiisaha leh ee aan ku soo gudbin doonno wakhti xaadirkan kanaalka iftiinka xogaha. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.